Ma ogtahay maabka dunida maanta adeegsato oo qaaradaha ku sawiran yihiin inuu qaldan yahay? Waxaa muddaba socday dood looga doodayo in maabka dunida maanta adeegsato oo qaaradaha ku sawiran yihiin maabkaas in la bedelo. Dooddaas waxaa waday ururo kala duwan. Ururadaas waxay ku doodayeen maabka inuu qaldan yahay, qaaradda Afrika inuu sida saxda ahayd u muujin. Marka dooddoodu mudday soo socotay, ololahaasna ay soo wadeen ilaa laga soo gaaray bisha Agoost ee sanadkan 2025 oo uu African Union codkiisa ku biiriyey. Ololihii waxaa ku soo kordhay ururka African Union oo iyagana ku garab istaagay oo yiri waa in la bedelaa maabka hadda dunida ay isticmaasho. Sababtoo waa qaldan yahay sida saxda ahayd qaaradda uma muujinayo Afrika, marka saa daraaddeed waa in la bedelaa. Maabka maanta la isticmaalo oo caalamkao dhan laga wada yaqaano waa maabka la yidhahdo Mercator. Waxaa loogu magac daray nin Jarmal ahaa oo maabka sameeyey oo soo saaray qarnigii 16aad oo la dhihi jiray Geraldus Mercatus. Ninkaas markuu sameeyey qaabku u sameeyey qaarada qaarkoodna waa yareeyey baaxaddoodii ama intee la ekayn waa ka yareeyey, qaarna waa waaweynayey. Sidaa hadda arkaysaan maabka dunida maanta isticmaasho waa maabkan maabka la yidhahdo Mercator. Fiiri hadda qaaradda Asia sizekeeda sida u weyn yahay, laakiin qaaradda Afrika markaad fiirisid waxaaba ka weyn qaaradda Amerikada waqooyi. Qaaradda Afrikana ka weyn, laakiin halkan wuxuu u muujiyey qaarad xoogaa ka yar qaaradahaas kale oo dhan. Maabkan waa labadii maab oo la isdhinac dhigay. Midka hadda ee African Unionka iyo ururada kale ku doodayaan oo leeyihiin ha laga dhigo waa midkan hadda midigta yaalla. Waxay leeyihin waa midkii saxda ahaa oo qaaradda Afrika baaxaddeedii saxda ahaa muujinaya. Midkan kale laakiin oo bidixda waa midka hadda la isticmaalo oo maabka Mercator oo qaaradda Afrika xoogaa ka yaraynaya baaxaddeedii sida ay tahay, xoogaa ka yaraynaya. Markaad fiirisid hadda maabkan bidixda ah waxaa arkaysaa wadamada Yurub sida u waaweyn yihiin. Fiiri wadamada Yurub waa waaweyneeyey, waxayba la eg yihiin qaarkood wadamada qaaradda Afrika waqooyigeeda ku yaalla ay soo gaarayaan, macnaha intay la eg yihiin weynaanta. Dhinacan kale laakiin midkan bidixda ah, midka waxaan dhihi lahaa midigta ah markaad fiirisid waxaa arkaysaa iyagoo dhan qaaradda Yurub oo dhan se u dhan tahay waxay la ekaanaysaa 3 wadanoo qaaradda Afrika. Waxayba la eg tahay Algeria iyo Libiya iyo Egypt oo la isku daray camal ee la ekaanaysaa qaaradoo dhan wadamada ku yaalla. Dhinaca kale waxaa arkaysaa xataa wadamada qaaradda Afrika dhexdeeda ku yaalla. Hadda markaad fiirisid Madagascar, jasiiradda Madagascar markaad fiirisid meeshan hadda maabkan hadda aan adeegsano way yar tahay, iyadoo dhan waa isku kuubsan tahay, waa wax yaroo kooban waaye. Maabkan kalena markaad fiirisid way dheer tahay, way fidsan tahay, waa aragtaa. Sidoo kale dalkeenna Soomaaliya markaad fiirisid maabkan fiiri intee la eg tahay Soomaaliya, iyadoo dhanba intee la eg tahay fiiri. Meeshaanna fiiri intee la eg tahay, sida u kala jiidan tahay u dheer tahay fiiri. Marka maabkan wadamo badan uu saas usoo koobayaa, wadamo badanna waa ballaarinayaa. Dhalinyaradan hadda aad arkaysaan waxay haystaan maabka cusub, kaas waa midku hadda gacanta ku wato wiilkan. Hadda maabkan saddexaad wuxuu ku tusayaa qaaradda Afrika weynaanteeda intee la eg tahay. Waxaa geli kara dhexdeeda waxaa geli kara India oo dhan oo lasoo qaaday iyo China oo dhan oo lasoo qaaday iyo dalka Maraykanka. Wadamada Yurub oo dhan oo iyagoo dhan oo la isku daray qaaradda Afrika qaybteeda kore kaliya ku eg yihiin fiiri, iyo Eastern Europe oo iyadana dhinaca laga soo geliyey xataa West iyo East oo Yurub oo dhan oo la isku daray intaasay la eg yihiin. Intaasaytoo dhan iyagoo la geliyey haddana qayb ka bannaan tahay. Waa aragtaan qaaradda weli qaybaa kasii bannaan, iyadoo intaasoo wadamo ah dhexda laga geliyey weli qaybaa kasii bannaan. Macnaha waxaa lagu tusayaa intay weyninkeeda la eg yahay qaaradda Afrika. Marka markii la weydiiyey ururadan u doodaya in maabka la bedelo midkan hadda la isticmaalo oo loo bedelo midka kale, markii la weydiiyo la yiri maxaa muhiim ugu aragtaan arrintan, maxaa macnaha ee muhiim idinkugu tahay, waxay dhaheen qaaradda Afrika oo ah qaaraddii labaad ee dunida ugu weyn oo la yareeyey waxay la micno tahay iyadoo la xaqiray qaaradda iyo dadkeedaba la xaqiray. Midda kale oo meesha taalla iyadana waxay tahay maabka sidiisaba wuxuu sheebgareeyaa aragtida dadka ay ka qabaan, bulsho walba aragtida iyaga iska qabaan iyo aragtida ay dunida ka qabaan. Dunidana maanta waxay ku tartantaa quwad. Yaraynta Afrika maabkeeda la yareeyey waxay ka micno noqonaysaa iyadoo dadka Afrikaanka la dulmiyey oo la curyaamiyey. Waxaa sidaas tiri naag u hadlaysay ururada doodaya mid ka mid ah oo la yiraahdo Speak Up Africa. teeda kale ururka African Union iyo ururada kale si wada jira waxay u sameeyeen online petition ah oo ay ku codsanayaan
qaramada midoobay inay hirgeliso maabka cusub ama maabka ay iyaga rabaan in la hirgeliyo oo qaaradda afrika sida quruxda badan ama sida saxda ah sayskeeda u muujinaya la joojiyana midka hadda la isticmaalo marka waa la arki doonaa haddii laga yeelo laakiin su-aasha waxay tahay maabka hadda la isticmaalo ma la yeeli doonaa in la bedelo oo lagu bedelo maabkaas kale hadday dhacdo in la bedelana aragtida dadka ay ka qabaan dunida maxaa iska bedeli doona